ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay inay muhiim tahay in doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya ee bisha dambe dhici doonto ay noqoto mid ku dhacda si xor iyo xalaal oo aan lahayn musuqmaasuq. Mudane Keating oo VOA-da wareysi siiyay isagoo ku sugan magaalada New York ayaa sheegay in haddii madaxweynaha lagu doorto qaab sharci darro ah ay jiri doonto cawaaqib uu la kulmi doono marka la eego in sida beesha caalamka ay ula shaqeyn doonto. Cabdicasiis Xuseen ayaa la wareystay Michael Keating waxaana warbixinta wareysigaasi soo koobay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaali. Danjire Michael Keating ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada Soomaaliya oo uu sheegay in ay howl muhiim ah ilaa ay imika qabteen isla markaana uu ku raacsan yahay inay diideen in ama la dedejiyo doorashada ama dib loo dhigo sida ay dalbadeen qaar ka tirsan murashaxiinta. Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed they formed a committee to help them oversee the process consisting of people who ilaa iyo hadda waxay qabteen waxyaabo wanaagsan waxaan la dhacay inay sameeyeen guddi ka caawina doorashada kuwaas oo ay ku jiraan dad aan siyaasiyiin ahayn. waxaa kaloo cajabiyey in lacagaha musharaxiinta isdiiwaan geliyey ee 50% loogu deeqay guddiga gurmadka abaaraha. musharaxiinta ragga ah waxay bixinayaan $30,000 halka dumarkana laga qaadayo $15,000. taasina waa wax wanaagsan. waxa aan ogahay ayaa ah inay diideen baaqiyo dalbanaya inay hanaanka la boobsiiyo ama dib loo dhigo, waxaana ay doorteen inay ku socdaan qaab ku salaysan hab farsamo. waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay arrin sax ah oo ay qabteen, sababtoo ah marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaanan loo samaysan qaab ku salaysan yaa ka faa'iideysan doona in si dhaqso ah loo sameeyo hanaanka doorashada ama dib loo dhigo, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee le'eg ayaan u baahannahay si aan hawshan ugu qabanno hab sax ah. Ambassador Keating ayaa sheegay in uu og yahay walaaca Soomaali badan ay qabaan ee ku aadan musuqmaasuq hareeya doorashada sidii tii ka dhacday doorashooyinkii baarlamaanka, balse waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in doorashadan ay noqoto mid xalaal ah. Well, look, first of all, an important point is, the election has held up a mirror to the Somalis. waxaa muhiim ah in la ogaado in doorashadu ay Soomaalidu u muujinayso sida awooddu u shaqayso. waxa ay shaashada ka arkaanna muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro musuqmaasuq Soomaaliya wuu ka jiraa oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. waa run waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadka lagu kala iibsanayay, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarinta la yareeyey. waa muhiim in musharaxiinta anshaxa ay ilaaliyaan. Ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in inkastoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay aysan lahayn door ay ku farageliso nidaamka doorashada, balse haddii si sharci darro ah madaxweyne lagu doorto uu jiri doono cawaaqib xumo uu madaxweynaha la doorto la kulmi doono oo ku aadan sida ay beesha caalamka ula macaamilayso. Well, part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs. marka hore sida aad og tahayba qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda. umana malaynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay in ay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan. dabcan cirib xumo ayaa ku jiri karta, balse annagu ma nihin hay-ad dhexdhexaadineed. waxa aanu leenahay waxaa weeye haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro, cirib xumada ku jiri karta waxa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan. taasi waa cirib xumada dhankeenna ah, balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay Soomaalidu u arkaan. haddii Soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah, waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba haddii aanba khatar la gelin. taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo Soomaaliya. waxa aan rabnaa
waa dhibaatooyin badan ee jira ka sokow waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey. hadalka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee ku aadan doorashada madaxweynaha ayaa u muuqda mid ay beesha caalamka uga digayso musuqmaasuq, laakiin dad badan ayaa aaminsan sidii hore u dhacdayba in doorashadu aysan ka marnaan doonin musuqmaasuq iyo isdabamarin. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo soo koobayay warbixinta waraysiga cabdicasiid xuseen uu la yeeshay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya.